بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا waxay ku saabsan tahay إيجابيات وسلبيات، macnaa wax fiican iyo wax xun, dhinac toosan iyo dhinac khaldan. ibni aadamku dhammaantiisa ama ha noqdo nin wax garanaya ama qof aan waxba aqoon, nin caalima, nin jaahila, nin muthaqafa, mid aan muthaqaf ahayn, nin siyaasiya, nimaan ahayn, nin mas-uula, nimaan mas-uul ahayn. ibni aadamka dhammaantiis, rag iyo dumarba, dabaqaadkiisa, tujaartiisa, kuwiisa lacagta leh, fuqaradiisa, qof walba oo ibni aadam ah laba jaanib buu leeyahay. jaanib wanaagsan oo qurux badan iyo jaanib mudlima oo madow, dhinac toosan iyo dhinac khaldan. marka waxay yidhaahdeen qofku marku labadaa jaanib midii uu u bato ayaa lagu tirinayaa, meeshii uu u bato ayaa lagu tirinayaa. haddii qofkan wanaagiisa uu badan yahay, gafaf iyo khalad baa ka dhaceen, qofkan qof ahlu khayra waay. haddii dhinaciisa xun uu badan yahay oo uusan ka tooba keenaynin oo uu ku socdo oo wanaagiisa uu yaryahay, qofkan waxa weeyaan waa qof meel khaldan u socdo waay. marka qaanuunkan oo ah aliijaabiyaat wasalbiyaat, oo dadka midnada wadhigoodu markaad fulaan ka hadlayso, markaad kooxdan ka hadlayso, markaad dowladdan ka hadlayso, daiman waa inaad maxaa la iijaabiyaadka salbiyaadka waa inaad daiman maxaa la lisba bardhigaa. waxaan filaya masaladaasi nooc maa waa khaldan tahay, oo ah in iijaabiyaad iyo salbiyaad qof walba lagu dabaqo aada u dhibaato badan tahay. oo waxaa ka imaanay dulmi baa ka imaanay, xadgudub baa ka imaanay, qof dadaalay baa waxaa dhici karaysaa qof khaldamay in maxaa lala simo. qof waxaa arkaysaa hawshiisii kasoo baxay baa waxaa lala sameeya qof hawshiisii dayacay. soo garmaysid iijaabiyaadka iyo salbiyaadku, dadna waxaa jira iijaabiyaadkooda mooye salbiyaadkooda aan la fiirinaynin. dad waxaa jira iijaabiyaadku waxay wanaagooda mooye salbiyaadkooda aan la fiirinaynin. haddii salbiyaadka ama waxyaalaha khaladka uusan dhib u keenaynin, hawsha ay gacanta ay ku hayaan. tusaale, qof baa maalin walba ama usbuuc walba ama bil walba wuxuu yidhi aniga voluntary bilaash iskaa wax u qabso ayaan waxaan ugu shaqaynayaa meel heblaayo, khaasatan ama masaajid ha noqoto, ama meel dacwo ha noqoto, ama meel maxaa la lahaa qur-aan laga dhiga ha noqoto, ama maxaa la lahaa meelaha dadka waaweynka lagu caawiyo ha noqoto, ama ha noqoto maxaa la lahaa meelaha isbitaalada dadka la caawiyo, ama ha noqoto dadka qofka maxaa advisorka u ah oo marka ay ninka mathalan kuwa soo qaado waxa weya waa nin maxaa la lahaa looyara, nin abukaata, nin xeer yaqaana. marka wuxuu yihi aniga isbuuc walba 4 saacadood ama maalin xafiiskayga dadku wuxuu u furan yahay aan awooda lahayn, shilin ka qaadan maayo, la talin baan siinaya, laakiin waa waqtigaa laga bilaabo. marka qofka kan wuxuu tadawucay ama bilaash uu ku bixiyey waqtigiisii, wuxuu tadawuc ku bixiyey bilaash uu ku bixiyey lacagtii soo geli lahayd, wuxuu tadawuc ku bixiyey aqoontii uu lahaa ee uu bedelan karayay ayuu wuxuu ku bixiyey maxaa la lahaa bilaash. ninkaasi marka in la fiiriyo waxaa waajiba wixii wanaagiisa. haddii aanay maxaa la lahay khaladka uu ku dhacaayo ayaan dhib u keenaynin waxa uu asagu maxaa la lahaa tadawucay. masalan kama soo qaad, wuxuu yihi aniga waxaan rabaa usbuuci inaan hal masaajidka muxaadara ka jeediyo, okay bilaash baan ku bixinaya. okay maalin walba sabti axad ama talaada ama isniin ama arbaco bacda salaat almaqrib ama bacda alcishaa ama bacda alcasr ama bacda duhur waasaan ka bixinaya. shir laydinkama rabo, baabuurka anaa iska bixinayo, tiidka anaa iska bixinayo, anaa imaanayo. jazaak allah kheer. haddii qofkii masaajidka markuu yimaado uu ka hadlo masaa'il ummadda isku diraysa, ummadda maxaa lalahaa kala geynaysaa, ama masaa'il caamadu ayaan qaadi karaynin, ama masaa'il dadka caqligooda uusan gaari karaynin, ama masaa'il dhibaato keeni karta, uu yidhi anuu tadawuc maanahay voluntary baan wax ku bixinaya, marka waa inaan waxaan doono sheega wax leyno maya. sababta waxa weeyaan tadawucaadi waxa uu keenay dhibaato weyn buu keenay.
sida daraadeed maya. مثلا waxa uu mu'asasa waxaan ka shaqeynayaa oo voluntary iska wax qabsaa waxaan imaanay saacad fulaan saacad marka uu yimaado dadkii meesha joogay buu canaananaya oo caynaya xumaynaya dhaqan xumuu la imaanaya waxana wuxuu leeyahay anuu maxaa lacag haysaa anuu bilaash baan idinku shaqeeyaa waqti maxalino ma masuuro bayso sal wanaagaaga ama iijaabiyaadkaaga waxa uu qiimo u leeyahay marka aadan dhib meeshaasi aadan u keenaynin marka ninka noocan oo kale taa hadii waqtigiisii uu tadawuco iska wax ku soo ku bixiyo dhaqaalihiisi uu yiraahdo anu shil ma rabo uu yiraahdo waqtigayga waa idinku deeqay waxa uu sameynayna ay yihiin wanaag kaliya maqlaysa waxa leeyahay wallahi allah ilaaha ninka kan waa aad u qiimo badan sida daraadeed hadii asagu waxyaalo shakhsi uu goonay oo salbiyaad uu leeyahay anagu shaqo marin sababtoo anagu marka uu noo yimaado maxarada noogu yimaado xafiiskan uu yimaado meeshaan uu yimaado wanaag iyo khayr iyo maxaa allah ayuu qabanaya sida daraadeed waa ninkan akhiyaar laakiin iijaabiyaadka iyo salbiyaadku laguma dabaqi karo qofka maxaa allah mushahar qaata qofka mas'uul noqda sababta hadii la hada iijaabiyaad iyo salbiyaad waaye meeshii waxaa ka baxaysa qaanuun musaa'ala wax isweydiinti accountability qofkii in wax la weydiiyo ila ninka mushahar buu qaata xil baa loo dhibay xilka loo dhibay waa in la xisaabtamaa maxaa khaldamay maxaa saxmay تريد وإن حسابه يتبادى هدو إذا قفنا محل الله ميزانية لو ديبي مكتب مدح لو قدغي وحلو ما يعني على حسابين قالوا الأخيار هاي نيو ونكسر هاي سيدا تردد محل الله هاي وإن لا يوكل صورة وحي aan sameeyo وإن محل لا قدم كين أدوكم مش قينيس مايا هذه مشهر ما تقاطي شقاد وقت ما تسوق ليسا وقت ما تكبح حسا هدي عاد وقتي عاد سوق ليسا عاد كسر دب عاد أما وقتي أكبح حسا عاد كهر مرته وأي واحد لجو يديا dhaqaalihii lagu dhiibay meeshii ay ku baxday oo rasiid leh oo cadayn leh oo aan mugdi ku jiro waa inaad bannaan keentaa hawshii lagu diray waa in lagu weydiiyaa hawshii maxaa lagu adeejiyey ilaa mushaar baad u qaadataa mas-uuliyada ku saaran mas-uuliyadaadi waa in siin iyo jiib uu ka yimaada su-aal iyo jawaab waa in lagu baaraa takhdac lilqaanuun caam oo dadkao dhan nin weyn iyo nin yar adduunka macnaa waxaa jirta maxaa la muxaasaba iyo wax isweydiin wax la yiraahdo ma jirto qof maxaa la lahaa oranay mas'uul baan ahay ama madaxweyne aan ahay wasiir aan ahay maxliban aan ahay waxbaan ahay waxaan doonaa sameeyay adduunku meelay ka jirto ma arko islaamku waa ogolaba qaanuun musaa'ala waa inuu jirtaa marka in badan ba marka qaarkood dad badan oo khiyaara ayaa waxa kale waniyo ninkaas ka wanaagiisa fara badan okay wanaagiisa fara badan waa maxad waa fiican tahay laakiin waa in haddii uu maxaa lahaa wanaagiisa faraha badan hadday ku dhex duuganta waxyaalo dhibaato fara badan ummadiiba mujtamac dhibaato uu keenaya marka qaanuun ijaabiyad way ijaabiyad marka qaarkood waxaa lagu oranayaa wallahi nimankan maxaa dacwada xarakada fulaan waa dad khayr badan oo wanaag badan bay sameeyaan masaajid ay dhiseen intay yimaadaan casharro ay bixiyaan waxyaalo bay sameeyaan that's good marka waxaa laga marka qaarkood inay irtikaabayaan ama ay sameynayaan akhtaa aad iyo aad u weyn oo wixii ay dhisayeen ay keento inay dunto ay dunto daraadeed haddaan waxba la iska weydiinin ama lala xisaabtin ama muraajaca aan lagu sameynin marka wallahi ninkaan fiican waay daa waa fiican waay ninka adiga wanaagiisa marin yes waan arkaa laakiin waa in la helaa maxaa lahay akhdaadiisana waa in la dabagalaa waa inay hay-ad jirtaa oo dabagelaysa oo muxaasibinaysa ay jirtaa haddii kale wuxuu isu qaadanaya hadhow maadaama uu wanaag badan uu sameynayo maasha allah wixii akhdaadiisana inay leeyihiin wax aan loo haysanin marka dhibaatada weyn oo Soomaali haystaa waxay tahay khaasatan wadaadada waxa ay tahay marka qofku hadlo waxa leeyahay iijaabiyaadka iyo falbiyaadkiisa wadinka iijaabiyaadkiisa farax badan mal cidiiday male laakiin wixii akhdaa waa in la saxa oo la dabagala oo la hagaajiya si aanay maxaa la guriga ama masaajidka ama ururkaasi ama mu'asasasi ay nooga dumin warkada dhaaba dawladda iyo nidaamka iyo wasaaradda iyo maxaa maamulka ummadda iska leedahay warkeedaba dhaaba marka ku yaryarkaa markay la xisaabiyo ku kale way fasahalanayaan laakiin hadii la yiraahdo maya ninkaan nin fiican waaye wanaagiisa farxada daayo dhib badan baa ka imaanaya ilaahay nagana daba saalixiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu